السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa mar kale iskugu soo laabanayna barnaamijkii mustaqbalka dhalinyarada. waxaa ila joogo Sheekh Cumar oo marti inoo ah mar kale iyo waxaan rabnaa inaan sii wadno barnaamijkii mustaqbalka dhalinyarada ka hadalno sida hore ula socon jirteen. waxaan rabnaa hadda inaan hore u sii wadno mustaqbalka dhalinyarada, waxyaabaha dhalinyaradu u baahan yihiin, waxyaabaha loo qaban karo iyo waxyaabaha wacyigelin ahaan ugu gudbin karno dhalinyarada inaan mar walba isku dayn inaan soo gudbino. waxaan rabnaa maanta inaan wareysano Cumar su'aalo ku saabsan daroogada iyo dhibka ay leedahay. su-aasha ugu horeysa aan maanta inaan weydiiyo Sheekh Cumar waxay tahay maxaa sababo dhalinyarada inay isticmaalaan daroogo? aad baa umahadsan tahay. barnaamijkan maalinlaha ah ama isbuuclaha ah ama mar walba loogu talagalay in dhalinyarada iyo dadka community lagu wacyigeliyo. run ahaantii su-aasha waa su-aal baaxad weyn. maxaa sababo inay dhalinyarada isticmaalaan daraagis ama daroogo? waxyaaba badan ayaa keeni kara. waxaa keeni karaa asxaab, waxaa keeni karaa family member ama qaraabo oo family ka mid ah oo isticmaala. waxaan mar dhaweyd wareysanayay ilmahayga oo aan ka wareystay, yani weligiin ma jiraa qof idin dhahay daroogadan isticmaala? yani mid ka mid a wuxuu igu yiri ha, qofa wuxuu igu dhahay hadda ka hor sigaar, intuu sigaar soo baxsaday qof Soomaali ah, cunug yar oo 12 jira ama 13 jira meel fadhiyo, dad weyn dhex fadhiyo ama meel fadhiyo, intay arkaan ay sigaar intay iska soo baxsan le muqsiya sida dadka weyn isku offer gareeyaan oo kale ayuu dhahay muqsiya. markaas waxaan dhawdaa maya, ka waran marka cunugaas hadduu xiisaan lahaa waxaas ama uu u maleyn lahaa wax fiican uu qaadan lahaa. marka su'aalahaas oo kale horta waalidka inuu weydiiyo ilmahaaga ma lagu dhahaa su'aalahaas, baalkan barooway, kaniinigan barooway, dhinacan barooway, xashiishkan barooway, sigaarkan barooway. horta meelo badan ay ilmaha ka soo arkaan ama ay yani exposure-ka ma aragtay ama marka ugu horeyso ay la kulmaan daroogada ay yani ka dhici kartaa. marka muhiimadda waxay tahay qof unbaa u bilaabo ama ha noqoto iskuulka inay ka bartaan. hadda baryahan dambe aad waxaa daroogada ilmaha ay uga bartaan iskuulaadkay ka bartaan. waxayna uga baranayaan dhalinyaro waaweyn oo yani waxaan iibiso ayaa jirto. markaas waxay sameynayaan dhalinyarada yaryareed ayay waxay leeyihiin lacaga ku siinaynaa, bahalkan qaad meel hebel gey, qof kale ka soo iibi. marka meelo badan ayay yani dhalinyarada ka helaan. waxaa ugu badan hadda iskuulaadka. waxaa kaloo hadda baryahan dambe soo badanayo meelaha Soomaalida iyo ma aragtay meelaha ma aragtay iskugu imaadaan dhalinyarada Soomaalida, ama ha noqoto garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro, meelaha basketballka lagu ciyaaro, ama ha noqoto meelaha ma aragtay park oo kale ma aragtay markii basketball yar ciyaaraan. waxay noqoto ayaa la isku dayayaa ma aragtay in dhalinyarada la tuso. hadda waxaa soo baxay daroogooyin loo yaqaano fentanyl. fentanylka waxaa loo isticmaalaa baryahan dambe kaniiniyo oo yaryar ama ninacyo, wax ninac u eg oo kalaa laga soo dhigaa oo qurux badan oo kalra badan leh. marka cunugii dhalinyarada ahaa ama yaraa ma dareemayo waxaan inay daroogo tahay, laakiin wuxuu u maleynayaa ninac qurux badan iyo waxaas sidii loo siinayaa berito way soconaysaa. siyaabo badan ayaa jirto ee dhalinyarada ku arkaan, kuwaasaana ugu muhiimsan. ku maasan tahay. su-aasha noo xigtaa waxay tahay hadda qofkii dhalinyarada wixii wuu bartay, daroogadii jaa wuu galay, wuu ku jiraa, familka maxay sameyn karaan u sameyn karaan cunugooda wixii bartay? familka horta midda ugu horeyso, aniga waxaan kasoo shaqeeyay gobollo badan, meelo badan waan kasoo shaqeeyay. barnaamijkaana aadka uga shaqeynaya wuxuu ahaa addiction, qabatinta ama qofka markuu addiction yani ku noqdo daroogo ama alcohol ha noqoto ama ma aragtay xashiish ha noqoto ama ma aragtay kaniiniyadan lacabo ha noqdaan, waxay noqotaba. marka familiga waxa u furan midda koowaad horta in ay iska daayaan wax la yiraahdo denial, inuu aabaha iyo hooyada ay iska dhaadhiciyaan aniga cunugeyga waxaas ma cabo, aniga cunugeyga waxaas ma sameeyo, aniga cunugeyga waxaas ma yeelo. anaga reportka ayaa la yaaba, hadda magaalo aan ka shaqeynayay reportka ay citigana siisay waxaa ku qornayd laba yani community oo aad loogu taag lahaa. communitygaas waxaa kamid ah Soomaalida. marka aniga Soomaalida ay khuseysay, Soomaalida u imaaday masaajida ka istaagay, waxaan ku yiri daatada citiga taalo waxayna tusaysaa dhalinyarada ugu badan ee u dhimato overdose, yani daroogada aad loo qaato, kaniiniga aad loo qaato xadkeeda dhaafsan. overdose macnaheedu waxa waaye over the dose of prescribed, wixii loogu talagalay ayuu qofka ka sare marinaya, xad dhaaf u qaatay. marka si xad dhaaf la markuu qaato dhalinyarada u dhimato Soomaaliya u badan. masaajidka anoo ka taagana 10 qofood Soomaali ah waxay gacanta taageen
waxaan u baahannahay data caddaynaysa inay Soomaali tahay dadku waxaa la yaabaysaa mugtahay anaga marka Soomaali haddaana waxaana lagu xisaabiyaa Black American African American we can never find data oo clear oo Soomaali waa qofkan ku dhehayso qofku markuu dhimanayo markuu daroogo u dhinto markuu autopsy lagu sameeyo waxyaabo reportka la qoro waxay tahay African American Black or African American tahay wax kale ma tiid marka muhiimaddu waxay tahay waalidka muxuu qaban karaa markood waa inay iska daayaan wax la yiraahdo denial ama diidmo maba jiro cunugeyga waxa ma sameeyo inay yani la dhaho midda kale waa in ay raadiyaan waxyaabaha la yiraahdo rehab ama resources ku saabsan meel hadda aniga aan ka shaqeynaa waxa kamid ah waxa jirto maalinkii aad geenaysaa ilmahaaga waxa la siinayaa daawooyin sida Suboxone oo kala la yiraahdaa waxay xiraysaa qabatiintii xiraysaa qofka haduu addiction leeyahay daawadaas marka la siiyo addictionkii ka block gareysmaayo marka daawadii ama daroogadii uu raadin lahaa waa ka xirmaysaa inay meelahaas oo kala raadsan hadii uu zaid noqdo marka qofkii oo xad dhaafo waxa jira meelo lagu xareeyo marka facility jirto lagu xareeyo oo ilmahaas uu ku soo qaadan karo 90 days yani 6 months 1 year oo si fiican ma aragtay detoxification loogu sameeyo la soo dhaqo la nadiifiyo yani jirkiisii laga baabi'iyo saameyntii drugska oo kadib dib community ugu soo laabto laakiin waxa dhan waxa dhacaysa waalidkii resources lama haystaan informationkii la siin lahaana waa ka carray ani waxa igu dhacday waalid Soomaaliyeed ayaa ii imaaday waxay rabeen information in ay weydiiyaan waxa soo ag istaagay qof ay qaraabo yihiin waalidkaas uu iga carray just because qofkaas qaraabada haduu ogaado afaarahayga waa ii dhamaatay oo kale waxa laga baqayaa marka community-ga qabiilka laga baqayaa reeraha laga baqayaa marka waalidka waxay sameyn karaan in aynan ka walwalin cid kale iyo stigma iyo waxa la iga sheegi doonaa iyo waxa la ilaahay doonaa waalid xunaa tahay no in aad ilmahaaga badbaadisid ayaa ka qiimo badan kana muhiimsan in ay daroogo ku sii dhintaan marka waalidka resources u yaalo banaankaas ay yaalaan waana diyaar waa dawladda diyaar waa community-da diyaar meel badan laga heli karaa caawinaad waa in ay raadsadaan waalidka ayaga ee fadhi ka kacaan marka oo kuma santaa taas waxyaabo badan ay u baahan yihiin waa waalidiinta inay u kacaan mar walba ilmahooda wax ka horeeyo ma jiro isla weyni ama inaad dad kale ka xishootid ama inaad dad kale waxay ku dheelaan ay ka fikirtid cunugaaga caafimaadkiisa kaaga muhiimsan oo kuma santaa su'aasha xigta waxay tahay waalidkii waalidada qaarkooda ma ka saaysi loo raasay wax resource ma yaqaanaan marka maxay community u qabtaan markii waalidka cunugooda oo daroogadii ama wixii dhex galo community-ga maxay resource ama wax u qabtaan familada waxaas u baahan community-ga u baahan qeexitaan community maxaa laga wadaa ma community-ga oo dhan oo iska socdo mise dadka centerada furtay ee lacag ku qaato dadka meelaha furtay inad caawiyaan ugu talagaleen ama loo tago ama waxa ka caawin wax walba noqdo daroogo kaligeed maaha wax walba dadka markay u baahdaan ay u tagaan ay ka caawiyaan maxay community-yaashaas ka caawin karaan marka dadkii markaas waalidiinta u baahan inay helaan caawinaad ilmahooda si ugu helaan masha Allah community-ga aniga laba oo kala qaybiya mid waa diini dhanka spiritualka ama ma aragtay ruuxiyaadka qofka bini'aadamka in laga dhiso midna waa community-ga caadiga oo service-ka caadiga dadka u qabto ama warqadaha u buuxiyaan ama ma aragtay housing ama guriyaha u buuxiyo waxa u buuxiyaan marka kuwan masaajidda inta badan dhalinyarada looma haayo dad aqoon u leh wadankiina fahansan oo dhalinyarada marka ay daroogada ku dhex jiraan caawin karo ma hayaan inta badan dhalinyaradii la shaqaalaysiin lahaana inta badan way ka maqantay masaajidda oo hoolahan ku dhex jiray ama qaarkood soo dhaxmaray in la soo qabto ma aragtay ayagii dib yani loo caawiyo ma aragtay community-gana ayaga ay ku soo laabtaan marmarka qaar waa arkaysaa hal mar oo qof soo baxay oo xabsi ka soo baxay daroogadii ka soo baxay oo dhalinyaradii yani rabo inuu wax u qabto wuxuu waynayaa platform ama meel hoosh ku qabto oo iska cararaya asina hooshiisa ama inuu ku noqdo ama inuu ma aragtay meel kale iska aaday noqonaysaa horta taas mid waa kuwan kale ee ma aragtay community-yada ah inta badan aniga dagaal waxa la igu soo qaaday magaalo aan ka shaqeynayay barnaamijaan qabanay oo looga hadlayo drugska community ahaan service ahaan waxaan keenaynay marka resources waxaan keenaynay boxyadii narcan boxki oo qofka haduu lacala overdose noqdo lagu buufin lahaa lagu badbaadin lahaa dad baa nagula dagaalay shaqadeeni baa qabanaysaan hawshaan anaga iska lahayn maxaa u galaysaan ma hadda adiga lahayd weligeed dadka wareysta marka waxa ku yiri community dadkan community waxay leeyihiin anaga hawshaan qabanay weligood wax ma qabteen waxa lagu yiri weligood intay dad soo hor istaageen arimaan kama hadlay magaalada waa first time oo barnaamijkan laga qabanayo magaalada Saane marka waxaan la yaabaa marka dadka ayagii waxay ka baqayaan jeegoodi iyo page-goodi in laga xiro wixii ay qaban lahaayeen warqadu way ku qoran tahay of course community uu qoran yahay community waxa u qoran youth services programyada wax ka celinayna mental illness drugs ki waxaas ku qoran iyo gangs waxaas ku qoran tahay lacag lagu qaataa laakiin reality-ga waalidka Soomaaliyeed haduu community-ga u tago waxba kama helo
marka inta badan waalidkeena qaladkay sameeyaan waxa waaye waxay u tagaan community-ga markii ilmahooda la xiro ayadoo community-ga waxba ku hayninba inta badan ayaa haddana waxa u tagaysaa waqti ilmahaagii la xiray waxa leedahay community warqad iyo qoor cunugeyga uu fiicnaa saan uu ahaa intay ka dhacday waxaan aragno oo reality ah it's too late marka community centerada waxaan dhihi lahaa haddii warqadaada ay ku qoran tahay oo proposalkaaga ku qoran yahay aad leedahay youth services qabtaa drugska mental illness ka hadlaa sirrina u qabo lacagaa lagugu siiyo ummadii inaad u adeegto wax walba ku saabsan ilmahaas daroogada cabaayo wixii laga caawin lahaa ilmahaas maaragtay gaangistarada wax laga caawin lahaa waxaas marka reality-ga waxay tahay community-yada يعني wixii way haystaan resourceska way heli karaan laakiin available uma ahan inay dadka u gudbiyaan ku maasan tahay wali programkii ku wada jirnaa iyo Sheekh Umar wali noo daadinay su'aalaha nooga jawaabayo marka su'aasha ugu dambaysa saara maanta inaan ku soo xirno maxaa xal u ah marka community ahaan iyo waalid ahaan dhalinyaradan si lagu badbaadin karaa waxa xal u ah anoo ka soo bilaabayo waalidka ilmaha dhalay waalidku waa inuu dareemo ilmahan adaa dhashay haddii hooyadii aabbaha kala tagaan xataa aabbaha waa inuu fahmo wax walbo lagu yiraahdo xataa guri ka tag ha lagu dhaho ilmaha uma soo dhawaan karti ha lagu dhaho in wax walbo lagu dhaho yani systema kuu ogol dowlada kuu ogol in ilmahaaga aad arki kartid ilmahaagana wax u qaban kartid marka qaar waxaa arkaysaa aabba Soomaaliyeed oo ilmihiisoo dhimanaayo ama dhibaato gaartay iskaga soconaayo oo waxba ka gelin waxaa arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheedii kana dhintay kan kala sii socdo oo wadadii ku socdo dhimanaayo kan kala hadana wadadii ku sii socdo daroogo cabaayo wax ka galay male waxay ka baqaysaa dad kale marka waxaan dhihi lahaa waalidka horta in ay ilmahooda inay badbaadiyaan wax walba ay ka hormariyaan aabahana in ma aragta haddii xataa la kala tagay mar walba la isku day in uu la shaqeeyo ilmihiisa taas mid waa community-ga centerada ay furan ee dhaha anaga waxbaan u qabanaa community-ga Soomaaliyeed qaasatan dadkan walaalaha dhalinyarada masaakiinta ee muslimiinta ee rafaadsan ee addiction-ka maaragtay daraagada iyo yani waxaan ku dhex jiro waxay u baahan yihiin caawinaad ay u baahan yihiin in la yasa maahan in la caayo maahan in maaragtay la fogeeyo maahan waa in la soo qabto waa in la caawiyo dhalinyarada banaanaha taagan ee homelesska ee daroogada la ildaran hooyadii aabii dhaleen hadday dayaceen xataa in la isku dayo in community uu istaago midda saddexaad masaajid walbo ilmo waxaa loo keenaa 5 jira 5 ka soo bilaaw 5 sano ka soo bilaaw 6 sano 7 sano 8 sano ilaa 10 jir ilaa 15 jir almost 10 years ayuu masaajidda ku dhex jiraa ilmaha Soomaaliga 15 markuu gaaro masaajidkii uu ku soo dhex jiro waxba kama soo barnin quraankii uu bartay waxba uma tarin diin uu bartay ama salaad uu tukado waxba uma tarin waxa arkaysaa wiilkii Soomaaliyeed oo daroogo la ildaran hadan marka masaajidana inay ma aragtay Ilaahay kaga baqaan dhalinyaradaas oo markay la joogaan inay baraan daroogada inay xaraan tahay kaliya ma ahane inay dhibaato u leedahay jirka bini'aadamka maskaxda bini'aadamka inay dhibaato u leedahay si marka loo badbaadiyo xalka marka wuxuu ku jiraa saddexdaas xoog waalidka community centerada iyo masaajidda oo u istaago waqti walba ay dhalinyaradaas la qaadanayaan in ay isku dayaan inay ka dhaadhiciyaan daraagiska inuu wax xun yahay dhibaatana qofka bini'aadamka u keenayo oo aad tusaalooyin iyo wacyigelin iyo cadeemo oo scientific ah aad la imaataan iyo dhan diini ah aad la imaataan laakiin dhanka diinta ayaa laga dhigin dhanka naxdinta ah naara galaysaa ilaahay ku cadaabayo maahan ilaahay wax ka naxariis badan ma laha ilaahay ummadiisa wuu jecel yahay marka xalka wuxuu ku jiraa saddexdaas dhinac oo laga wada istaago oo gacmaha inta la isqabsado dhalinyarada la badbaadiyo waana la badbaadi karaa waa ku maasantahay wuxuu ahaa Sheekh Umar ala nooga jawaabayay oo ku saabsanay daroogada iyo dhibka uu leedahay ilmaha iyo muhiimadda ay leedahay waalidka inuusan fiirinin community-ga sida looga dhaxarkaayo iyo ceebta soo gaarayso sababta waxa badbaadinaysa waa cunug adiga dhashay badbaadiisa adiga ku saaran tahay wadan qurbaa la joogaa meel la isku dayaco ma la joogo waa meel dadkan inay wada istaagaan loo baahan yahay masaajidadii sida Sheekh Umar noo sheegay community-yadii waalidiintii kulli in la isgarab qabto si loo badbaadiyo dhalinyarada waxa programkan wadn waa mustaqbalka dhalinyarada si loo badbaadin lahay haddii jiraan programyo kale aragtiina ka hadalno ama meeshan ku soo bandhigno waana la soo socodsiin kartiin qaybta comment-ga nagu dhaafi kartiin haddii wax kale aragtiina ka wada hadalno ama ra'yi waan ugu darsan kartaan muhiimadda waxa uu sameeynaa waxay kaliya tahay mustaqbalka dhalinyarada in la badbaadiyo haddii mustaqbalka dhalinyarada la badbaadiyo community-gu wuu badbaadaa marka waxaa maanta ku soo khatimeynaa programkeena halahaas oo ku mahadsantihiin subscribe-ka community-ga hala gaarsiiyo qof walba video markuu arkaa la sii share gareeyo si dadka dhan loo wada gaarsiiyo si wax community-ga ugu bedelna hadduu Ilaahay idmo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.